بسم الله الرحمن الرحيم ضمان ولا Soomaaliyeed oo halka isku yimid waxaan ku salaamayaa magaca islaamka salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib caawa munaasabada halkan isku nimid waxa ugu muhiimsan maamulka cusub oo si dimuqraadiga iskula maamulka kula wareegeen maamulka Hirshabelle munaasabadaas waxay soo xasuusinaysaa nidaamka macnaha aniga aad waxaan ula bogay hadda maamulka hadda joog kii ka horeeyay markii doorasho ay dhacaysay si macnaha dadka ay ku wada qanacsan yihiin wax ku dagaalamay ma laha wax xabad isku gamay ma laha marka waxaan dhihi lahay waa maamul goboleedkii haddii la fiiriyo Puntland ugu horeysay oo si dimuqraadi ah ku kala wareegto xukun Jowhar hadda Hirshabelle waxay noqotay tii labaad ayadoon xabad dhicin ayadoon lagu dagaalamin ayay nidaamka ku kala wareegeen marka waxaa hadda iskala shacbiga degan oo dhaqameedyada meesha degan siyaasiyiinta kuwii horeeyay kuwa dambe waxaan leenahay marka dadkii hore u joogayna wax fiican ay soo qabteen qaasatan waa dadku isku hayay colaad ma dhacin ma la dagaalamin si nabad ay ku wada noolayeen haddana nasiib wanaag nin asaga la shaqeyn jiray Cali Gudla waa yimid iyo Luqmaan oo baarlamaanka madaxda ka ah iyo nin Yuusuf Dawageed la yiraahdo oo weligiis maamul ku jiray waxaan rajeynaa marka maamulkaas Hirshabelle anigu credit waxaan ku siiyay macnaha isbedelka ay sameeyeen doorashada dhacday dood waa laga qabi karaa laakiin si aan xabad ka dhicin gobolada qaarkood waa lagu dagaalamay ani hadda ma tilmaamayo gobolada waxa dad baa ku dhintay gobolada qaarkood markii la dooranayay laakiin ma tilmaamayo dad baa lagu dilay dad baa lagu xabisay laakiin Jowhar iyo Puntland waxay noqdeen gobolada si dimuqraadi ah lagu kala doortay dadka ayadoon xabad ka dhicin hadda ayaga kala dad ahaan way saastaan waxna colaad ma ka taagna laakiin dhibaato jirto oo ku haysato dadkaas fatahaada biyaha Jowhar biyaha kusoo daad baa soo galo beledweyne daad baa soo galo dad ku dhamaado marka waxaan dhihi lahay dadka meesha degan cid kale isku haleynina maamul la idin dhiibay maamulkiinaas si daacad ugu shaqeeya ummadaas oo biyaha ku dhamaanayo hantidaas ku baaba'ayso in macnaha wax ka qabataan taas aan kula dardaarmi lahay qaasatan madaxweynaha hadda xilka loo dhiibay iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa dad deegaanka u dhashtay waaye dad yaqaan waaye waxaan dhihi lahayn intaas kaliya wax ka qabta haddii aan dib ugu noqdo magaalada Jowhar iyo beledweyne meesha qaasatan Hiiraan waa siyaasiyiinta ugu horeysay Soomaaliya meeshii kasoo baxeen SOL meesha laga asaasay zoonahaas ee Hiiraan ay ahayd Jowharna waxay ahayd magaalo ganacsi waxaa la ii sheegay aniga ma soo gaarin laakiin waxay lahayd train oo kasoo baxo Jowhar ilaa Muqdisho yimaado howshaas waxaan ka rajaynaynaa dadka hadda maamulka qabtay inay ku dadaalaan inay sameeyaan trainkaas ilaa Muqdisho inay keenaan haddii Ilaahay idmo waxaan kusoo khatimaa annaga banaadam markaan joogno waxaa maqli jirnay shirb iyo waxaas dadka waxay dhihi jireen adduunyo Jowhar ka joog aakhirana janna ka joog marka taasaan maqli jirnay markaan soo Muqdisho joognay marka waxaan leenahay hadalka waxaan kusoo koobayaa waa mahadsantihiin isku imaatankan ummadana faataxada u mari doonaa intaasna macnaha deegaankaas biyahaas fatahaadaas iyo bal ilaahay ka badbaadiyo ayagana ha dadaalaan insha allahu tacaala